waxaan maanta anigoo ah xogeyo xuquuqul insaanka xisbiga wadani marwa Maryam Maxamuud Dirir waxaan halkan ku qabanayaa war saxaafadeed aan kaga hadlayo xaaladii ugu dambeeyay ee Somaliland ku soo kordhay wixii ka dhacay ayaan doonayaa maanta inaan halkan ka hadlo Somaliland waxaa ka dhacay 16 bishii 8 2022 mudaharaad salmiya oo labada xisbi mucaarad wadani iyo ucid ay sameeyeen laakiin xukuumaddu waxay ku wajahday gaboodfalkii ugu weynaa abid ee Somaliland ka dhaca waxaan marka hore tacsi tiiraanlayada u dirayaa dhammaan gobollada Somaliland toddobadii qof ee ku dhintay waxaan leeyahay saddexda gobol ay ku dhinteen Maroodijeex Togdheer iyo Sanaag waxaan leeyahay dhammaantiin ilaahay dal iyo dibadba samir iyo iimaan haynaga siiyo dhammaan dadkii xisbiga wadani ka geeriyooday ee gobolka Maroodijeex waxaanu ka soo bilownay dhakhtarka weyn dadkii ku jiray ee dhaawac ahaa markii dambena waxaanu tagnay dhakhtarka Amal waxaana ahayn maaragtay xisbigii wadani haweenkiisii anigoo xogeyo xuquuqul insaanka ah gudoomiyihii garabka haweenka Fusiye Kayse gudoomiye ku-xigeenkii Safiya Cumar xoghayihii wacyigelinta Ifraax maxay ahayd waxa kale oo iyadana halkaa nagu wehelisay marwadii murashaxa Cabdiraxmaan Farduus Maxamed Rooble waxa kale oo qayb ka ahaa haweenweynihii xisbiga wadani oo hiil iyo hooba isla garab taagayay dhaawacooda maxay ahayd iyo dadkii ka dhintay tacsi tiiraanyaalena waxaanu u diraynaa mar labaad dhammaan dadkii naga geeriyooday oo gobolladoo dhan ku geeriyooday gaar ahaan qoyskii iyo eheladii iyo qaraabadii ay marxuumiintaasi ka geeriyoodeen waxaan leeyahay ilaahay wax khayr qaba ha idinku bedelo waxaan kale oo maaragtay ilaahay uga baryayaa dhammaan intii ku dhaawacantay oo weli alaankaa dad cusubi soo baxayaan oo maaragtay qaar dhakhtarada la geeyay dhakhtarka weyn iyo dhakhtarka Amal Grand New Hargeysa ku yaala qaarkood dhakhtarraba lama geeyna guryaha iyagoo dhaawacan ayay guryaha maaragtay lagu daweeyay waxa weeye dad fara badan ayaa dhaawacaasi maaragtay ayaa dhaawac loo geystay waxaa dadka lala dhacay oo xukuumaddu ay u adeegsatay abid gaboodfalkii ugu weynaa Somaliland ee mudaharaad ka dhaca ayuu ahaa runtii waxaa maaragtay murugo leh xukuumaddu inay dadkeedii iyo shacabkeedii inay u adeegsato xabad nool oo aan loo kala aaba yeelin oo ku dhacaysa maaragtay dhallinyaradii dadka ugu badan ee dhaawacmay waxay u badan yihiin dad dhallinyaro ah waxay sameeyaan waxa weeye waa mudaharaadna waa la yaqaanaa markuu salmi yahay sida uu u dhaco waa qofkii oo ra'yigiisa cabiraya maaragtay ka hadlaya waxa uu maaragtay doonayo sheegaya laakiin in xabad nool loogu hanjabo oo ciidamadii loogu talagalay maaragtay inay dadka ilaaliyaan inay dadkii si toosa u laayaan oo weliba ciidamada oo dhan iskuma jiraan dad gaar ah oo si gaar ah u abaabulaa ayaa dadka xoog u laayay runtii taasna waqtiyada ka mid ah maaragtay way heli doonaan waajibaadkoodii qof muslina dila ee dhiiggiisa qaata dee haddaan adduunyada lagaga jirin ilaahay baa ka jaraya aakhiro waa qof gacan ku dhiigle ah marka waxa weye dadkoodii oon waxba samayn inay gacan ku dhiigle noqdaan waayo dadku qorayna may sideen maxay hayteen maadaama qofku waxaanu hubna sideen hadduu mudaharaadana waxba ma samayn karo xitaa dhagax ma tuuri karo waayo waxaanu arkayno noo muuqanayay maxay hayteen iyadoo ciidamadii qorigiina ay ridayaan dhagaxiina ay ridayaan marka waxa weeye yacniga waa fool xumo Somaliland ku soo kordhay baan leeyahay dee Somalilandna inaynu maaragtay 30 sano dabadeed inagoon helin ictiraaf helin haddana inaydu saarno tubtii burburka cagta saarno waa wax aad looga murugoodo inta Somaliland dee danaynaysa arkaysa waxaasoo dhan waxaa maaragtay dee xukun jacaylka iyo kursi jacaylku
dee mushkiladdiisuu leeyahay weliba mushkiladda wuxuu ku leeyahay maaragtay madaxda dictatoriska ah ee dalka sida maaragtay ula isticmaalaya wixii aynu dee ka dagaalanay oo kale xukuumaddiisi yaad bare dee qof nool beebeeye iyo kaarayaal iyo xilliga ay dhanaanaatay ayaa dadka la marinayay laakiin markay cusbayd dee in dhallinyaro la baacsado oo iyagoon mudaharaadka ku jiran la baacsado oo maxay teen markii inankii yaraa ay ugu dambeeyey ee dhintay ayaa aniga murugo igu reebay qof kasta oo daawaday reer Somalilandna murugo ayuu laabtiisa iyo qalbigiisa iyo maskaxdiisaba ku reebay that's way ay qof kasta oo arkaa uu uga murugoonaya ugana jirdhicoonaya inanka yar isagoo markii waa gaadha lagu bacsaday sawiradiisa caalamka oo dhan baa daawaday gaadhiga markuu lagu bacsaday guri buu qaraacay gurigii uu qaraacay markuu hortaagna ayaa xabadda ku dhacday meydkiisi baa la qaatay maalintii dambe ayaa lagu soo riday dhakhtarka weyn la keenay waxa weeye dee gaboodfal intaa la eg xukuumadda dadkeedii inay ku samaysaa runtii wax la qaadan kara maaha waxaanu leenahay dee xukuumaddu wixii dhacay way dhaceen inay ka waantowdo inay dadkeeda tacaddi intaa la eg u geysataa waa ayaan daro kursigana in of the day imisaynu garanaynaa oo madaxweyneyaal dictatorisa oo dalka soo maray oo la waayey meelay jaan iyo cidhib dhigeen run ahaantii waxaan leeyahay anigu madaxweyne Muuse Biixi ha joojiyo maaragtay waayo xeerka booliska waxa ku qoran madaxweynuhu waxa weeye waa taliya ciidanka xeerka booliska ku taala markaa waxaad arkaysaa dee waxaa la samaynayaa ee dhacay dee xukuumaddu inay ilaa xadkaa socotaa ya iyadoo waddo kasta u mari karta hadday dee rabto inay maaragtay doorashooyinkii way ku tala gashay inay dib u dhigto u mari karta inay u marto inay dad noolaysaa wax qurux badan maaha wax la aqbali karana maaha in of the dayna waa la iskula xisaabtami doonaa Somaliland intii ay jirtay anu maan arag dowladdii siyaad barana aan yaraado laakiin waan garanayaa wixii dhacayay oo dhan si fiican baan u garanayaa maanta inagoon ictiraaf helin wixii aynu ka dagaalanay inaynu waddadeedii tubteedii cagta saarnaa dee reer Somaliland ma idinla qurux badan tahay haddaad daawanaysaana oo aad aragtaan mucaaradkii iyo xukuumaddii oo meesha ugu qaraadheed isla maraya haddaad daawanaysaan reer Somaliland ya dee waxaad ku jirtaan daawanaya waa dalkaagii ayaad ku jirtaa hadduu madaxweynuhu erga diido hadduu madaxweynuhu doorasho diido hadduu madaxweynuhu dee waa shaqsi madaxweynuhu waa hal qof golayaal baa jira golayaasha hadduu isagu diido oo amarkooda dhegaysan waayo dee golayaashu way garanayaan waxa ay samayn karaan iyaga u taala Somalilandna uma baahnaa waddadan ay maanta ku jirto ilaahayna waxaan ka baryayaa dhammaan dadkii ku dhaawacmay oo dhan inuu ilaahay si maaragtay ilaahay u boogadhayo ilaahay inuu nabaradoodana maaragtay uga dhigo nabar xaqdarro oo ku dhacay waxaan baaqu dirayaa oon u soo jeedinayaa Somaliland ta ay maanta ku socoto haddii lagu sii daawado oo loo haysto inaan waxba ka dhici karin dee waynu garanaynaa dalkii la odhan jiray Soomaaliya siduu u burburay waynu garanaynaa hubna maynu haysan markaynu dagaalamayno qoryana maynu haysan markaynu dagaalamayno Somaliland haddaynu nahay ma aha qasab in hubka xukuumadda inay hubkeeda iyo ciidamada Somaliland loogu talagalay dalka inay difaacaan inay shacabkeeda ku caburiso wax diyaar wax qurux badan ma aha wax loo baahan yahayna maaha waxaan leeyahay xukuumadda ha ka waantowdo dadkan ay shacabka ah ee markuu mudaharaado codkooda si salmiya u soo bandhigaya fikirkooda aaraahdooda shalay bay ahayd inuu Muuse Biixi isagoo mucaarad ah inuu ra'yigiisa cabirayo shalay bay ahayd dee cid ku ceebsanaysa ma jir intaa la soo maray wuu soo maray laakiin ilaa xadka dad la laayo ee ugu badan jeelasha inta ku jira ayaa ka daran rag iyo dumarba
hablo iyo wiilalba maanta jeelashii Somaliland bay ka buuxa haddii aanu nahay xuquuqal insaanka waanu cambaaraynayna xisbiga wadani haddii aanu nahay xuquuqal insaanka xisbiga wadani waanu cambaaraynayna mana qaadan karno ilaa xadkaa wixii ka sii dambeeya dee madaxweynuhu hadduu ka waantoobi waayo dee gadood shacab baa ku dhacaya ma wuxuu rabaa madaxweynuhu inuu dadka wada kiciyo dad baa jira aan siyaasadda ku jirin dad baa jira dad businessman ah waxa jira dad maxay tahay waxyaalo kala fara badan oo Somaliland qabsada oo ka shaqeysta ayaa jira oo siyaasiyiinba ahayn dee markay baxashu socoto dee qof walba gurigiisa ugu galaysa Somaliland ay haddaad wax garadkiin iyo waaye araggiinu ka hadli weydaan waxa dhacaya oo qof walba uu ka muqurtay oo u haysta in xisbiyada mucaarad kaliya la doonayo lama doonayo laakiin dalkani madaxweynaha maanta jooga wuxuu doonayaa inuu boqor noqdo madaxweyne boqor kuu suurta gelmayso boqortooyo inay ka suurta gasho dad reer Somaliland dhiiggiisu ku jiro waa mid aan suurta gelin mana helaysid madaxweynayaashii kale doorashooyinka way qabteen sharciga ku soo laabo doorashada qabo dhibaatada dalka ka socota jooji wixii hore ee dhacayna dhammaan dushaadii saaran yihiin haddii dhimasha dhacdayna xukuumadda ka mas'uula xeerka booliska ku qoran tahay askari kasta ama qof kasta oo ciidan ah haddii uu cid wax u geysto xabadi ku dhacdo dee xukuumadda ka mas'uula iminkana waxaan arkayaa iyadoo khamiistii ay geeridani dhacday oo dadkii la laayay inay maanta ilaa iyo talaakadihii ku jiraan meydkii oo xukuumaddu ayna weli ay socdaan inay qaadato wixii dambi iyo fal meesha ka dhacay iyadii ka warwareegayso hana ka warwareegin dhammaan wixii tacadiya dadka loo geystay adiga ayaa xukunkii jooga adaa madaxweyne ah adaa ka mas'uula ciidamadana waxaan leeyahay war dadkiina halaynina qof alla qof reer Somaliland ah oo dadkaasi meel kaga yihiin ehel iyo qaraabo iyo xigta cid wax kasta la isku yahay war dadka sida axmaqnimada ah ha u dilinatay haddii laydin yiraahdo madaxweynuhu dhiig gal oo aad tirado waan gelaya adigu askari baa too mushaharkaad qaadatana waa la garanaya mushaharkaad qaadatad wax ku dilaysad dhiig ku qaadanaysid bal adiga laftigaaga isweydiiye waxaad tirahdaa ma $100 baan qaataa mushahar u qaataay ma dhiig baan ku galaa maya dee waan iskaga tegaya ha ku gelina dhiig waxa dhiig lagu galana anigu ma qabo ugu dambayntii waxaan leeyahay xisbiyada mucaaradku dad ku baqanaya xabad la rido qof la xidho midna maaha ilaa ay doorasho dalka laga qabanayo mudaharaadadoodii ee salmiga ahaa ee ay ku dhawaaqeen horena waa u sheegeen iminkana way wadayaan xukuumaddana waxaan leeyahay ha ka waantoodo gaboodfalka axmaqnimada ee naxariis darrada ah ha joojiso assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu